warbixin xiise leh ayaa ka soo baxaysa waddanka Falastiin taas oo bilihii u dambeeyayba si weyn ay u qaada dhigayeen warbaahinta caalamka. Hubkii Mareykanka laga qabsaday sanadkii 2021 si gaar ah waddanka Afghanistan Taliban ay gacanta ku dhigtay ayaa waxaa la warinayaa inuu u gudbay waddanka Falastiin si gaar ah kooxaha xaquudirarka ah ee Xamaas. Ciidamadii Mareykanka ee ka soo baxay waddanka Afghanistan bishii Agoosto sanadkii 2021 ayaa weli ka soo muuqanaya meelo ka baxsan waddanka Afghanistan. Hubka oo noocyadiisa kala duwan oo ciidamada Mareykanka kuwana ay ka carareen kuwana si xoog looga qabsaday ayay sheegtay in maamulka Israa'iil hubkaas hadda intiisa badan uu u gacan galay kooxaha xaquudirarka ah ee ka dagaalamaya dhulka reer Falastiin oo ay ugu horeyso ururka Xamaas. Bishii la soo dhaafay taliye sare oo diiday in magaciisa warbaahinta loo adeegsado ayaa u sheegay wargeyska la yiraahdo Newsweek in hubka fudud ee Mareykanka loogu qaatay waddanka Afghanistan uu soo gaaray gacanta Falastiiniyiinta ee ku sugan daanta galbeed ee marinka Gaza ayuu yiri sarkaalkan sare ee u hadlay maamulka Israa'iil. Inkastoo ilaa iyo hadda dowladda waddanka Afghanistan aanay ka soo bixin faahfaahin dheeri ah oo la xiriirta sababta hubka Mareykanka lagala wareegay uu ku gaaray dhulka reer Falastiin, haddana Mareykanka iyo maamulka Israa'iil ay amaka ku noqotay sida hubkii laga furtay waddanka Mareykanka ay haatan gacanta uga galay ururka xaquudirarka ah ee Xamaas iyo saaxiibadooda. Israa'iil dhawaantan dagaalo adag oo ay ku qaaday dhulka reer Falastiin ayay ku soo jabtay, waxaana dagaaladaasi lagu arkay hubkii casriga ah ee Mareykanka looga furtay gudaha waddanka Afghanistan. Inkastoo ay adag tahay in dhulka reer Falastiin si gaar ah daanta galbeed ee magaalada Gaza hub la geliyo, haddana sanadba marka ka dambeysa waxaa la arkayaa falal ama kaag ah oo ay ku dhaqaaqaan kooxaha xaquudirarka ah ee ka dagaalamaya dhulka reer Falastiin. Dagaalyahanada xaquudirarka ah ee reer Falastiin si gaar ah Xamaas waxa ay bilaabeen in si weyn ay u garaacaan caasimadda maamulka Yahuudda ee Tel Aviv. Waxaa dhacda mararka qaar in xitaa gantaalada ay gacantooda ku samaystaan kooxaha xaquudirarka ah uusan qaban karin ama xitaa uu ku guuleysan waayey hubka casriga ah ee Israa'iil haysato, kaas oo looga talagalay in guud ahaan dhulka Israa'iil ay xoogga ku haysato uu ka waardayo madaaficida xaqa uu caawinayo ee ka imaanaysa dhinaca reer Falastiin. Mareykanka iyo Israa'iil ayaa hadda ka yaaban qaabka hubka reer Falastiin. Mareykanka iyo Israa'iil ayaa hadda ka yaaban qaabka ururka Xamaas uu ugu gacan galay hub casri ah oo Mareykanku uu sameeyay.